ciidankiina lacagta lama siinaa kuwii xataa lahaa oo systemka baliifagaarada ku jiray oo electronic ah taleefankooda ugu dhacaysay oo diiwaanka rasmiga ay dawladda ku jiray laftirkooda 4 bilood ee ka maqan 3 bilood ee ka maqan qayb bay ka yihiin kuwan goosanaya wadooyinka meeshii waxa yimi wasiiran bacna ahayn taana ahayn wax shaqaa u qabta aan jirin maqaar saar ah wasaaradii waxa gacanta rasmiga u hayay Saciid Cabdullaahi Deni iyo walaalkiis Xasan Cabdullaahi Deni wixii ay xuquuq u lahaayeen mashaariic khilaaf siyaasadeed Saciid Cabdullaahi Deni xasan shaqo dhaxay personal ah danta Saciid Cabdullaahi Deni 6 sano iyo bar ayuu Saciid Cabdullaahi Deni hadda Puntland madaxweyne ka yahay shacabkaas waxa ay xabsiga ugu jiraan oo go'doonka ugu jiraan oo mashaariicdoodu waxa niban tahay oo mushaharaadkii ciidanka dawladda federaalka waa la diiwaan gelin lahaa mushaharaadka ka kabilahayd waxaasoo dhan ay u waayeen Saciid Cabdullaahi Deni dantiisa maxay tahay filla Soomaaliya inuu koro oo madaxweyne loogu doorto in yaroo Puntland ka mid ah waxay taagan tahay ama madaxweynaha aan joogno ama ra'iisul wasaaraha aan joogno haddii aysan ahayn Soomaaliya gabi ahaanba dawladda Soomaaliyeed waxaan la shaqaynayna ma jiro ismada Puntland ma ictiraafsana taleefanka kama qabto xurmada ay lahaayeen ma siiyo yuu ka adeejay wuxuu ka adeejay oo lacagtii Puntland ugu kireeyay dad dhaqan xun oo akhlaaq xun oo jirriya beel walba wuxuu ka xushay dadka ugu akhlaaqda xun waxay caayaan ismada waxay caayaan culimada waxay caayaan aqoonyahanka waxay caayaan siyaasiyiinta isaga iyo Kolombiyaan calooshoodu shaqaystayaal oo Suudaan ka dagaalama oo halkan raadaaro ku rakibta boosaaso oo diyaarada maalin walba meeshan ka kicinaya ula seexda container meesha ula seexda xero weyn oo BNPF Imaaraadka uu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba oo aad joogtaan si walba muuqaalkiyada idiin soo gaarayo halkani waa telefishinka RTN barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeyn doono xaaladaha ka taagan maamulka Puntland gaar ahaan ciidamada dhawaan gadood sameeyay xaaladaha guud ee dalka ayaan barnaamijkan ku gorfayn doonaa waxaase igu marti ah Injineer Cabdicasiis Faarax Saciid oo ah siyaasi si la mid ah aqoonyahan xogaal u ah xaalka guud ee dalka Injineer markii hore waan soo dhaweynayaa xaaladaha maamulka Puntland dhawaan waxa ka taagnaa ciidamada gadood sameeyay ma aha markii koowaad mana aha markii labaad aan arkayno maxaa sababa ciidamadan har iyo jeer gadoodka sameeya wadooyinka xirtaa ee ku soo laabtay Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waa mahadsan tahay diirsha adiga iyo bahda RTN